الرحمن الرحيم. أنا سجوا عفوا قبل كيران وأنا تاجرنا وسبتالكي وينا قبل كيران وجنرال هوسبيتال ويران يقبلوا ضن كيني مع كندا لوسور ترجعيني runtii isbitaalkan oo isbitaal aad u weyn dowlo badan ay dadka ka yimaadaan sida gobolka Bakool kilka shanaad Soomaaliya degto gobolka Hiiraan oo dhan daafiisa ilaa Galguduud dhanka la soo xigto sida arkaysaan isbitaalku wuxuu u shaqeeyaa maarta bukaanno fara badan ayaa la keenaa inkastoo isbitaalku hadda qaybo kamida oo qaybta ugu badan 80% qaybta bukaan jiifka ay ka jirto maarta gaab isla markaasina cid gacanta ku hayso ama hay'ad caawisho aysan jirin arrintaas oo aan la wadaagnay wasaaradda iyo dhammaan hay'adaha ilaa haatan aan la haynin cid maartay qaybtaas baahideeda daboosho waxa jiro qaybta bukaan socodka iyo qaybta emergency-ga oo hadda SSP ay gacanta ku hayso isla markaasina isbitaalka caawiso xagga biyaha iyo wardi oo ayana qaybta nafaqo darada hadda aan arkayn ilmaha nafaqada daran la siixiyo runtii isbitaalka bukaanno badan oo kala duwan ayaa jiifo oo isku jiro bukaanno qaliimo lagu sameeyay sida gabdhaha ilmaha ay ka imaan waayeen ama ay maartay dhali waayo iyo maartay iyo dad kale oo dhaawacyo qabo oo ayagana meesha qalin lagu sameeyay iyo bukaanno kala duwan oo cudurro qabo cudurro kala duwan runtii waxaan maartay halkan aan ku arkaynaa in nafaqo daradu ay soo badatay maadaama waddanka abaaro ay ka dhaceen isla markaasina ay jirto jadeeco ama cudurka misriska oo aad ugu baahay degmada Beledweyne iyo degmada Matawaan iyo daafahooda maartay uu ka jiro iyo gobolka intiisa kaleba runtii qaybta hadda nafaqo darada waxaan arkaynay in ilmo badan ay jiifaan ilaa dhowr iyo 20 cunug ayaa hadda jiifto laba kamida oo nafaqo daran oo cudurka jadeecadana qabay ayaa waxay u geeriyoodeen maartay dhibaatadii ay ka soo gaartay cudurka maartay ama complication-kii ay ka soo gaaray jadeecada inta kale hadda jiiftana waxa weey alxamdulillah waxa lagu dadaalayaa in la nafaqeeyo taasina marka waxaad arkaysaa in dhibaatada nafaqo daradu ay soo kordhayso qaybtaasina oo nafaqo darada waxa gacanta ku haya hay'adda wardi oo hadda maartay ilmahaas quudiso marka si soo maartay waxyaabo loogu talagalay lagu nafaqeyn lahaa hadda tirada guud hadda ilmaha hadda meeshii waa 22 cunug waxaan moodaa maartay xilliga hore inay aad u yaraayeen oo ay 10 mataqaana ilmood ay ka hooseeyeen marka waxaana keenay nafaqo darada in ay baahdo abaarihii waddanka ka dhacay maartay gobolka saameeyay iyo cudurka jadeecada oo haddana waddanka hadda aad u saameeyay gobolka oo maartay aad maartay u jiro ayadoo dadkii aysan haysan wax tallaal ah oo la gaarsiiyey maartay meelaha fogfog dadkii oo laftooda qaxooti soo noqdo magaalooyinka soo galay oo dad kale ku dulnool dhibaatada maartay nafaqo darada waxa ay ka imaanaysaa marka raashin xumadaas iyo cudurrada jiraan ilmaha nafaqo daran hadda ilmaha nafaqo daran waxa laba cunug ayaa ku dhimatay markii la keenay xaaladooda ay xaalad aad u adag oo aad maartay wax badan laga qaban karin way u geeriyoodeen ilmaha kale oo jadeecada qaban laftoodana laba ilmood ayaa ku dhintay isbitaalka oo ayagana sidaas oo kale maartay bishiiba ugu yaraan ilaa 50 cunug oo jadeecada isoo ridayka intaan aragnay waa 4 laakiin inta la soo gudbinayo hadda maartay oo anaga hadda aan xaqiijin karin aad u fara badan oo la sheegay in ay ku dhinteen maartay ama guryahoodii ama goobihii xanuunka uu ku qabtay ama baadiyaha ama noqoto tuulooyinka laga keenay caafimaadka ama state-ka ama wasaaradda caafimaadka federaalka waxaan u diri lahaa in arrimaha caafimaadka adeegga caafimaadka wax badan loo soo jeesto wax badan laga qabto dowladduna ay maartay dhaqaale badan ay mataqaanaa ku bixiso sidii caafimaadka wax looga qaban lahaa khaasatan maartay in isbitaalada oo meeshii referalka oo muddo la keenayo qofkii maartay wax looga qaban waayo meelihii kale MCAdyada ama goobihii caafimaadka la keenayo in asagana xoog la saaro si isbitaalku u noqon lahaa mid si maartay hufan shaqadiisa u socota adeegga caafimaadkana laga heli karo maadaama hadda isbitaalka 80% uu maartay yahay qayb iska bannaan oo dadka ka shaqeynayna ay si volunteer ku shaqeeyaan
daawana aan haysan mataqaana ku filan waxaan u soo jeedin lahaa marka in arrintaasi maaragtay loo kaco oo maadaama mas'uuliyad xag ilaahay uu nagula xisaabtamo xag maaragtay bini'aadanimana ay tahay in laga shaqeeyo in maaragtay dadkaasi oo wax la qabto oo loo gargaaro dadkana ilmaha nafaqada daran sidooda ayagana maaragtay wax la nafaqa daradaas sida uga bixi lahaayeen ayagana gacan weyn laga geysto kuwa jadeecadan uu soo ridanaya in la helo tallaal looga hortago maadaama cudurka jadeecada uusan daawo lahayn maaragtay waxaan ka warnay isbitaalka Beledweyne maaragtay wuxuu ku shaqeynayaa xaalad aad u adag maadaama in beeshinka qaybaha bukaanjiifka sida maaragtay qaybtii dhalmada oo muhiim ah oo meesha ilmaha maaragtay bini'aadamka oo maaragtay ay ku badanayeen oo ay ku dhalayeen haweenku iyo qaybihii kale oo jiifka ah iyo qalliinka ay maran yihiin ma dawooli karo isbitaalka baahidaas oo dhan oo gobolka ama gobolada u dhow dadka laga keenayo waa aad baahi aad u weyn waay waxaan u baahan yahay marka la soo garab istaago isbitaalka oo dhinacaas laga caawiyo maadaama uusan haysan hay-ad daboosho isbitaalka baadiisa oo maaragtay dhammaan wada kaafiso maadaama hay-adaha hadda jooga ay yihiin kuwa maaragtay qaybo isbitaalka ka mid a hadda gacanta ku hayo oo isbitaalka guud ahaan